ninkan waxaa la yidhaahdaa cali. cali ilaahay kagama xishoodo ficiladiisa iyo hadaladiisaba, ammaanadana ma ilaaliyo. maalin ayaa uu cali soo booqday nin ay saaxiibo yihiin. albaabka markii laga furay, cali saaxiibkii si aad u qurux badan ayaa uu u soo dhoweeyey, reerkiisiina ka dalbay in ay u sameeyaan casuumad wanaagsan. cali iyo saaxiibkii markii ay cunteeyeen ee ay dhargeen, salaadii duhurna tukadeen, ayaa cali bilaabay in uu hadlo, haddana uu ka labalaboonayay. laakiin saaxiibkii isaga oo dhoola caddaynaya ayaa uu ku yidhi, ha iga xishoon walaal, wixii aad rabtid haddii ilaahay awood igu siiyey oon kugu caawinaya. ma rabin inaan saas ku aragno waqti dheer kadib, laakiin duruufta iyo xaalka baryahan jira ayaa igu qasbay inaan ku imaado, oo shaqadii aan ka shaqayn jiray 2 sano ugu dambeeyay ayaa liiga soo eriyay. markaa waxaan kaa codsan lahaa saaxiib inaad lacag amahaysid. intaasun hadday tahay ha ka warwarin. inta uu kacay ayuu khasnadiisii lacag uga soo saaray. hoo lacagta saaxiib, wax heshiis ahna kaama saxeexayo, sababtoo ah waxaa tahay saaxiibkii aan aaminay. 5 bilood markii ay ka soo wareegtay maalintii amaahda, ayaa uu cali saaxiibkii xaalad adag galay. habeenada ka mid ah ayaa raashinkii guriga ka dhammaaday, lacag ay ku soo iibsadaanna ma ay haysan. carruurtii iyaga oo gaajoonaya ayaa ay seexdeen, berina waxay cunaan ma haystaan, oo ganacsigaagii aan ka quudin jirnay waa kaa burburay, ee ordo lacagtii aad amahisay saaxiibka ka soo qaado. cali saaxiibkii markii hore ma ogolaan arrinkaas, laakiin ku celcelin badan kadib ayaa uu go'aansaday inuu soo ceshado deyntii. cadceeddii markii ay soo baxday, dhiiggii aroortuna ciyey, ayaa cali saaxiibkii wuxuu ku tukaday masaajid. kadib toos waxa uu ugu tegay cali, laakiin meeshuu dego cali ma uu garanaynin. sidaa darteed dadka ayuu weydiiyey, waxaana loo tilmaamay dukaan aad u weyn oo qurux badan. cali saaxiibkii uu la cajabiyey quruxda dukaanka iyo dadka intaa leeg ee dhex joogta. markuu soo galay dukaankii, waxa uu shaqaalihii ka dalbaday in ay ugu yeedhaan cali. cali markii loo sheegay kamarada ayaa uu eegay, waxaana uu gartay in uu yahay ninkii amaahiyey lacagta. xaalkaa markii uu taagnaa cali dhowr bilood ka hor, waa la soo dhoweeyey oo la casuumay si heer sare ah, laakiin isagu ficilkii lidkiisa ayuu sameeyey oo askariga dukaanka ilaalinaya ayuu ku yidhi, ninkaas haddaanu waxba iibsanayn iiga saar meheradayda. isna sidii la amray ayuu sameeyey oo cali saaxiibkii dukaanka ayuu ka eriyey. markii ay habeenimo noqotay ee dukaankii cali soo xidhay, ayuu arkay saaxiibkii oo meesha ku hor sugaya. ayuu iska indho tiray, laakiin saaxiibkii uu ku soo cararay, waxaanuu ku yidhi isagoo dhoola caddaynaya, saakaan imaadoo ninka askariga ah ayaa ereyday, anna waxaan is idhi malaha khalad baa dhacay, waxaana inba kuugu imaaday inaan kaa dalbado lacagtii deynta. kuma garanayo ciddaad tahaybe iga tago ma daban ayaan ku arkin. saaxiibkii aad ayuu uga murugooday arrinta, oo waxa uu gartay in la khaayimay oo la dulmiyey. isagoo fadhomaran ayuu ku noqday gurigiisii, wax kalema uu odhan aan ahayn, xasbiya allah wa nicma alwakiil. calina sidaas oo kale ayuu ku noqday gurigiisii quruxda badnaa, si nabad ahna ayuu isaga seexday, isaga oo u malaynaya in uu sidaas ku guulaystay oo deynna aan laga qaadaynin. laakiin cali ma uu garanaynin waxa ku soo socda. dhowr bilood kadib waxa uu khasaaray ganacsigiisii, oo dadkiibaa khiyaamooyinkiisii arkay. maalinba maalinta ka dambaysa nolol faqiirnimo ah ayuu kusii durkayay. halkaa kumay joogsanine ee gurigiisii uu ku noolaa waa laga soo eryaday. hablihiisii mid ka mid ah, gaajada iyo dhaxantii dibadda ay seexanaysay ayaa ku keentay xanuun aad u adag, oo dhakhtarka la jiifiyey. markay xaaladii ku adkaatayna ayaa waxa uu tegay masaajidka, oo isaga oo ilaahay baryaya oo si laga naxayo u ooyaya ayuu sheekhii masaajidka u yimid oo ku yidhi, adeer maxaa kugu dhacay sidaas kaaga oohiyey? calina isaga oo murugaysan ayuu uga sheekeeyey sheekhii. sheekhuna waxa uu kula taliyey inuu u tago ninkii uu dulmiyey uuna kasoo dembi dhaaf weydiisto. cali sidii ayuu sameeyey,
waxaana uu u tegay saaxiibkii intuu baryay ayuu ku ooyay siduu u saamaxo wuxuuna uga sheekeeyey dhibtib soo martay cali saaxiibkii waxa ahaa nin qalbi wanaagsan oo isla markaana qalbigiisa jilcay oo wuu iska saamaxay sheekada waxaa laga faa'iidaysanayaa in aan weligaa cidna dulminin oo ammaanada aad ilaaliso ilaahay wuxuuna qur-aanka ku sheegay watilka alquraa ahlaknaahum lamaa dalamuu wajacalnaa limahlihim mawcidaa nebigu wuxuu yidhi nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ittaqu dulma fa ina dulma dulmaatu yowma alqiyaama dulmiga iska jira waayo dulmigu waa mugdi maalinta qiyaame